madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo dalka Jabaan kaga qayb galay shirka toddobaad ee horumarinta Afrika ayaa wadahadal laba geesood ah la yeeshay ra'iisul wasaaraha dalka Jabaan Shinzo Abe. Wadahadalada madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Shinzo Abe ayaa diiradda lagu saaray iskaashiga labada dal ee dhinacyada amniga, shaqo abuurka dhalinyarada, maalgashiga beeraha, xoolaha iyo kalluumeysiga, tababarka ciidamada booliiska iyo weliba taageeridda ciidamada ilaalada xeebaha Soomaaliya. labada hogaamiye ayaa sidoo kale isdhaafsaday aragtida ku aadan kamera dhalinta qorsheynta wadajirka ah ee Afrika iyo Jabaan ee lagu jaangoonayo madasha saddexda sanadlaha ah iyo sidii maalgashadayaal u dhashay dalka Jabaan ay ugu diiran lahaayeen ka faa'iideysiga fursadaha maalgashi ee ka jira Soomaaliya. madaxweyne Farmaajo ayaa la wadaagay ra'iisul wasaaraha dalka Jabaan guulaha muuqda ee shacabka iyo dawladda Soomaaliya ay xaqiijiyeen muddadii la soo dhaafay iyo doorka hogaamineed ay ka qaadan karaan kobcinta dhaqaalaha iyo isku xirka dalalka gobolka. waxaan rabaa inaan kaga mahadceliyo adiga iyo shacabka Jabaan soo dhaweynta diiran ee aad noo sameyseen aniga iyo wafdigii muddadii aan halkan ku sugnayn. waxaan abaal u haynaa Jabaan taageerada tooska ah iyo weliba midka dadban ay la garab taagan yihiin dawladda federaalka Soomaaliya iyo shacabkeeda. dhanka kale ra'iisul wasaaraha dalka Jabaan ayaa xusay muhiimadda Soomaaliya u leedahay barnaamijka iskaashiga laba geesoodka ah ee Jabaan iyo Afrika isagoona ugu mahadceliyay madaxweynaha iyo wafdiga jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee ka soo qayb galay madasha iyo qorshaha wax ku oolka ah ay soo bandhigeen. ra'iisul wasaaraha Jabaan ayaa sidoo kale bogaadiyay dawladda federaalka Soomaaliya horumarka ay ka gaartay dawlad wanaagga, dib u habeynta dhaqaalaha iyo ciidamada qalabka sida, wuxuuna ballan qaaday in Jabaan kaalin mug leh ay ka qaadanayso dadaalada deyn cafinta oo ay si wadajir ah uga shaqeyn doonaan xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo hay'adaha caalamiga ah ee maaliyadda oo Jabaan ay xubin firfircoon ka tahay.